Mudaharad kan ayaa abaarakoodii doornimo ka bilaabmay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana mudaharadkani markii uu bilaabmay soo gaaray ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer oo uu horkacayo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Somaliland Sarreeye Guuto Axmed Liibaan Fooxle ciidamada ayaa shacabkii mudaharad ay ku furay rasaas si ay u kala dareeriyaan iyadoona shacabka mudaharad ay sida ay sheegeen ay ka godoodeen weerar ciidamada qaranka Somaliland ay ku qaadeen jabhadda Korneel Carre oo maraya deegaanka Dhoob oo 40 kilomitir kaga beegan dhanka bari magaalada Erigabo waxaana shacabkii mudaharad ay kamid ah hadaladoodii sida tan ka mudaharadayna wasiirka arrimaha gudaha ma Somaliland mudan buu yahay Reer buu yahay wataana leeyna xasuuqna Somaliland hayn waxaanu ka mudaharadayna dadka yaga baa la xasuuqay dawladdu ma jirto haday dawladdu reer ahayn ma dadka muslimiinta kala dhex galaan islaanaya dhiig islaam hamaano walba lagu qubayo laba qabiil ba islaanaysa dabeetana hadii ay islaanayso dawladna qaarna waa la hubeynaya qaarna waa la eryanaya ninkii isa soo taaga waa la eryanaya waa la xilxilaya maalin kasta ina Kaahin ayaa waxa soo dhan ka dambeeya wax xukuumad la yiraahdo ma jirto mudaharadka ayaa si xoogaystay iyadoona dadka mudaharad ay burburiyeen goobo ganacsi waxaana intaasi kadib goobta soo galay ciidamada militariga ee gobolka Togdheer oo iyagu la wareegay sidii u sugi lahaayeen xaaladda amni maamulka gobolka Togdheer oo ka qayb qaadanayay sidii ay u damin lahaayeen mudaharadkaasi kuna guuleystay ayaa waxa fariin ku saabsan ilaalinta nabadgelyada iyo muhiimadda ay u leedahay shacabka ay u direen bulshada gobolka Togdheer ay media sigaaro oo dabcan warar khaldan ama sawirro khaldan in la gaarsiiyo laakiin waxaan cadaynaynaa in gobolka Togdheer magaalada Burco inay nabad tahay dhalinyaro mudaharad iyo taayiro gubaysa ayuunba jiray iyagana booliskii markay yimaadeen iyo ciidamada militariga iyagana waa la kala dareeriyay wax kale oo dhiba ama khasaare ah oo ka dhashay ma jiro guud ahaan waxaan uga faa'iideysanayaa shirkayga jaraa'id reer Togdheer gaar ahaan reer Burco inay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo amnigooda qof kasta oo reer Burco amnigu dambi u yahay hadduu yar yahay hadduu weyn yahay inuu ka shaqeeyana waa waajib laanahu innaga ayaa ku nool nabadda innaga ayaa wax ku barana innaga ayaa ku cibaadaysana innaga ayaa ku seexana marka inaan nabadeeni inaan ku yaqaanay iyo kala dambeynteeni iyo amnigeeni inaan ilaashano reer Burco aan baa uga dirno nabadda ilaashadaan nabadgelyada dadku iyaga ku nool Burco walba nabadgeeda nagala shaqeyn jirtay maantana waxaan leenahay maantana sidii dhalinyarada iyo waayeelka iyo waxgaradka gobolka Togdheer ay noogala shaqeyn jireen Burcada nabadgelyadeeda inay noogala shaqeeyaan baan ka codsanaynaa inay sidii ay noola dejin jireen dhalinyarada ay noola dejiyaan mudaharadkan ayaa sida ay noo sheegeen maamulka gobolka Togdheer aan geysan wax dhimasho ah iyagoona ay jiraan khasaare fudud oo soo gaaray qaar ka mid ah meheradaha ganacsi ee ku yaala magaalada Burco Abdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Reer TV Burco.